بسم الله الرحمن الرحيم وكما قفكي ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafa su'aasha sida aynu uga jawaabno waxaynu isweydiinaynaa waa kuma masjidkii ugu horeeyay ee dhulka laga dhiso yaase dhisay masjidkii ugu horeeyay ee dhulka laga dhiso wuxuu ahaa Kacbada ama masaajidka xaramka ah ee ay Kacbadu ku taalo waxaana u daliila qowlka Ilaahay ee Ilaahay uu leeyahay inna awwala baytin wudica linnaasi lalladii bibakkata gurigii ugu horeeyay ama masjidkii ugu horeeyay ee dadka loo dhiso ama loo dejiyo wuxuu ahaa ku yaala Baka ama Maka sida awgeed haddaynu taa ogaanay inuu masjidkii ugu horeeyay ee la dhisa uu yahay Maka ama masaajidka ay Kacbadu ku taalo waa kuma qofkii ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafay culimadu way isku khilaafeen qofkii ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafay khilaafkooduna wuxuu ka imanayaa waxay isku khilaafeen waa kuma qofkii ugu horeeyay ee Kacbadan ama masaajidkan dhisa culimadu afar qowl ayay isku khilaafeen qofkii ugu horeeyay ee masaajidka Kacbadu ku taalo dhisa culimada qaar waxay leeyihiin waxa dhisay nabiyullaahi aadam abul bashar baa dhisay culimada qaarna waxay leeyihiin waxa dhisay shayth ibnu aadam oo ah inankii aadam dhalay culimada qaarna waxay leeyihiin waxa dhisay nabiyullaahi ibraahim culimada qaarna waxay leeyihiin maya waxa dhisay malaa'igta intaan la abuurin 1000 sano ka hor nabiyullaahi aadam laakiin waxaynu qaadanaynaa qowlka ibnu kathiir iyo culimo kale oo muxaqiqiina ay ku tageen oo ah inuu Kacbada dhisay nabiyullaahi aadam hadduu Kacbada dhisay isagaana ah qofkii ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafa tusaale ahaan hadday malaa'igtu Kacbada dhisi lahaayeen iyaga ahaan lahaa qofkii ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafa nabiyullaahi aadam ayaa Kacbada dhisay qofkii ugu horeeyay ee masaajidka dhisay waa isagaana ah qofkii ugu horeeyay ee Kacbada ku dawaafay qisaduna waa sida tan ilaahay nabiyullaahi jibriil calayhi salaam ayuu wuxuu u soo diray nabiyullaahi aadam jibriil wuxuu ku yidhi nabiyullaahi aadam ilaahay wuxuu kugu amrayaa inaad Kacbada dhisto nabiyullaahi aadam Kacbadii wuu dhisay markuu dhameeyay ayaa nabiyullaahi aadam waxa lagu yidhi waxaa tahay qofkii ugu horeeyay ee bashara ee la abuuro beydkana waa beydkii ugu horeeyay ee la dhiso sidaa awgeed ilaahay wuxuu ku amrayaa in aad ku dawaafto Kacbada hareeraheeda nabiyullaahi aadam calayhi salaam wa calaa nabiyina wuu ku dawaafay Kacbada hareeraheeda sidaa awgeed qofkii ugu horeeyay Kacbada dhisa waa nabiyullaahi aadam ciddii ugu horeysay ee ku dawaaftaana waa nabiyullaahi aadam waalcilmu cinda allah cilmigaasi ilaahay agtiisa ayuu yaalaa wallaahu aclam wa axkam